kusoo dhawaada shabakada Kacab Media. haddii ay tahay markii kuugu horeysay oo na soo booqatay fadlan subscribe saar si ay ku soo gaaraan muuqaalada cusub. maxaad ka taqaanaa fanaanada ugu anshax xun fanaaniinta Soomaaliyeed gaar ahaan fanaaniinta gabdhaha? bulsho badan ayaa isla qartay in fanaanada ugu anshax xun ay tahay fanaanada Nadiir Nayrus oo fankeeda ku bilowday magaalada caasimadda ee Muqdisho isla markaana u weecatay magaalada Hargeysa iyo deegaanada Somaliland. xilliyada ay soo duubayso muuqaalada heesaha ay qaado waxaa laga dheehan karaa muuqaalo iyadoo jirkeedu uu qaawan yahay, waxaana heesaha inta badan ay ku gadaa jirkeeda si ay u soo jiidato taageerayaal badan. Nadiir Nayrus ma lahan cod wanaagsan oo soo jiidasho leh, sida awgeed waxa ay dantu ay biday in jirkeeda ay ku soo bandhigto goobaha masraxyada iyadoo heesaha intooda badan ay si kasa ay u luxdo naasaheeda. fanaanada Nadiir Nayrus fanka Soomaaliyeed sal iraad kuma lahan markii laga reebo iyada oo u aragtay in taageerayaal badan xilligan ay ku kasban karto jirkeeda inay qaawiso isla markaana ay ku soo bandhigto goobaha masraxyada iyo sidoo kale muuqaalada kale ay soo duubayso. fanaaniinta Soomaaliyeed waxaa laga qiimeeyaa cod macaan inuu fanaanka leeyahay, laakiin markii ay ogaatay Nadiir Nayrus in ehel fan aysan ahayn ayaa damaceedu waxa uu noqday oo kaliya in goobaha masraxyada ay ku soo bandhigto jirkeeda isla markaana ay luxdo naasaheeda. waxaa jira fanaaniin badan oo gabdha oo cod macaan leh isla markaana isku kalsoon, laakiin fanaanada Nadiir Nayrus waxa ay ku kalsoon tahay in heesaheeda ay ku gado jirkeeda iyadoo masraxyada waaweyn lagu arko iyadoo si weyn u luxaysa naasaheeda isla markaana soo bandhigaysa jirkeeda. fanaanadan oo fankeedu ku bilowday magaalada caasimadda ee Muqdisho ayaa haystii ugu horeysay waxaa aad ula yaabay bulsho badan maadaama meel masraxa ay ka qaadaysa heestaas isla markaana ay si weyn u soo bandhigtay jirkeeda iyadoo qaawan. haddaba dhalinyarada iskaabulada intooda badan waxay leeyihiin Nadiir Nayrus anagu waxaan ka daawanaa oo kaliya jirkeeda, codkeeda naguma socdo oo cod ma lahan, ehel fanna uma lahan Nadiir Nayrus. haddaba nala soco, waxaan soo bandhigi doonaa fanaaniin kale oo gabdhaha kuwaas oo goobaha masraxyada ku soo bandhiga jirkooda.